السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت على السنة لو ذاقو دور إري أو ديري قلين أما طلب إذا كتمي ولكن waxaan doonayaa inaad ogaataan ama inay dareensiyo wax kasta dunida jooga ama qiimo leh inaan lagu helin fudayd ama sahal lagu helin. Haddaba guusha qof kasta ku hamiyayo waxa jira qof kasta inaga mid ah ama walaalka ama hooyada ama aabaha ama inaadeerka ama inaabtiga wax ku hamiyaya markasta inuu nolosha nolol ka wanaagsan gaaro isla markaana halka uu joogo ka dhaqaaqo oo meel kale gaaro. qof kasta inaga mid ah uu ku hamiyay balse waxa gaara in yaro kooban. haddaba inta yaro koobani waxay leeyihiin astaamo iyo dabeecado gooniya. waxa la doonayaa inaad ogaato dabeecadaha iyo astaamaha goonida ah ee ay leeyihiin. tusaale ahaan waxa tiray waxaan doonayaa guri baan dhisanayaa ma aha muhiimad maad sheegin hadafkaaga, laakiin haddii aad tiraahdo guri baan dhisanayaa halkaasaan ka dhisanayaa gurigaygu noocaas uu egyahay sidaas weeyaan ruuxantii hadafkaasi waa mid cad oo muuqda. qofkaasina uu samayn karayaa waana samayn kartaa sidaa tiri, laakiin kaliya dad ku soo koobto gurigan samaysanaya maaha kaasi hadaf wax cadna maaha umana muuqdo hadafkaaga inaad gaadho. waxaan wada ogsoonahay in samirku yahay waxa ugu muhiimsan ee qofka bini'aadanka hibe Ilaahay u siiyo. markaad doonayso wax inaad qabato dhibaato ayaa ka hor imanaysa. dhibaatooyinka ka hor imanaya waxa loo doonayaa inaad noqoto qof aanay xanibin caqabadaha ka hor imanaya isla markaana u yeesho samir. waxa la yiraahdaa samirka wax quraanka lagu sheegay 99 jeer. samirku waxa uu muuqdaa waxa ugu muhiimsan ee qofka bini'aadanka Ilaahay siiyo. qofka bini'aadanka dulqaadka iyo samirku waxyaabo badan bay gaarsiiyaan. guusha waxa lagu hantaa samir, dadaal iyo karti oo waliba lagu daray joogtayn mar kasta.